hani cawil cumar oo ah 16 jir waxay ka mid tahay gabdhaha agoonta ee lagu aasaasay xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere oo shaqaynaysa 10 sano. hani iyo 3 gabdhood oo walaalo la ah ayaa xarunta agoonta wax ka barta. hani waxay ku jirtaa dhamaadka waxbarashada dugsiga dhexe. waa fasalka 8aad. waxay ka mid ahayd 1300 oo gabdhood oo la fasaxay sanadihii u dhaxeeyay 2020 ilaa 2021 xilligaas oo safmarka COVID-19 uu saameyn ba'an ku yeeshay dalka Soomaaliya. 9 gabdhood oo ka tirsan xarunta agoonta ayaa la guursaday. qaarkood waa lagu qasbay guurka halka kuwa kale ay iyagu go'aansadeen inay guursadaan. hani cawil cumar waxay isguursadeen wiil 22 jir ah kaasi oo ay toddobaadyaha saawayeen. khilaaf qoyseed kadib waxa ay go'aansatay in ay kala tagaan ama ay isfuraan. tani waa lagu programiyay arin habarta soo diyaaris habarta kulama rabin wiilka ala soo raacday. hooyadan da'da yar waxay haysataa gabar sanad jir ah. waxay sharaxaysaa sida ay ugu suurto gashay inay dib ugu soo laabato waxbarashada xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere. waa ciishoonaha kula marka anoo sas guri la qabo joogo oo gabdho kale oo uniform wataan hadaa arko wallahi ma kar meel iska tagaa iska ooyna iska soo aamusan iskeenana maamulta garab iyo silsilaa qeyrasiyo mar walba waxay noo sameyn jirtay wacyigelin oo ah in aanay waxbarashada dib ugu soo laabano gabdhaheen oo guursaday diirad waxay saaraysay sida aan waxbarashada dib u wada lahayn. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka gabdhaha la guursado iyaga oo da'yar. waana dhaqan soo jireen ah. ku guursiga da'yaraanta iyo guurka degdega ee aan loo garaadsan ayay sheegtay in laga wanaagsan yahay. wallahi waxa ku dhiirgelin lahaa inay isku degdeg guurka. waa hore xaalad dhahay geedkii roor lagu daro roor lagu soo dagaa. inay waxbarashadooda iska dayacin. gabdhaha la guursaday intii ay fasaxa ku jireen waxaa ka mid ah Xalima Xasan Cabdiraxmaan oo 22 jir ah. sanad ayuu dhisnaa reerkeeda kadib ayay kala tageen ninkii ay isguursadeen. aabaa uu qasbay aan guursaday dabeecadaas labadeena dabeecad keeniyay aan soo koobtay. marka laga yimaado hani iyo Xalima waxaa jira 6 gabdhood oo ka mid ahaa ardayda xarunta gabdhaha agoonta. uma suurto gelin inay dib ugu soo noqdaan waxbarashada. maamulaha xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere Nuurta Maxamed Cadow ayaa tilmaamtay habka ay ugu suurto gashay in gabdhahan qaarkood ay ku soo celiyaan waxbarashada. waa arin culeyskeeda leh aadna noo taabatay ahayd caruurtana dhibaato badan ka soo gaartay. wacyigelin inay waxbarashadooda sii wataan ay iskuulka u dhow inay tagaan inaan la dayacin. gabar form 3 kaaga tagtay oo diin iyo maadiba baratay korinsheedana aad xataa qayb ku lahayd inay ama saamayn inay nagu leedahay qof walba way dareemi kartaa. xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere waxay maamul ahaan hoos tagtaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladda hoose. maamulka xarunta waxay ku taamayaan in ardayda ay soo saaraan ee ka qalin jabiyo dugsiga sare loo raadiyo waxbarasho jaamacadeed. qorshooyinka nooga degsan waxa waaye inaan jaamacadaha ugu cadcad magaalada Muqdisho ku yaalo inaan mid walba dul istaagno. haddaba maxay tahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha ay u leedahay bulshada? Nasriin Maxamed Ibrahim, Bilan Media, Muqdisho.